daawadayaal waxaan ku sugnahay meel aan sida ugu fogeyn aragada magaalada Muqdisho markaana kaabiga ku haysa hotelka ayaa ka mid ah hotelada Muqdisho isla markaana weerar ku qaadeen xubnaha dagaalyaasha Shabaab sida darkiisaan waxaa laga maqlayaa sida hotelka jug aad u xoogan kaasoo ay dadku ay si weyn isugu yimaadeen waxaana sidoo kale jirta rasaas laga maqlayo sida taasoo u dhexeysa hay'adaha amniga Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan Shabaab inuu weerar ku soo qaaday hotelka warar aan helino ayaa sheegaya in saraakiisha amnigu ay amar ku bixiyeen in gabi ahaanba hotelka isla markaana sida ay sheegeen saraakiisha qaybo ka mid ah hotelka markaa geli waayey sababta awgeeda kadib markii gudnihii weerarka soo qaaday iyagu markaas xabad ay ka soo qorayeen waxaana hay'adaha amnigu la faray sida xogta lagu soo gaartay in gabahaan hotelka dhulka si marka loo soo afjaro weerarkii muddada dhowrka saacadood qaatay markaas ka socday hotelka ayaa magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale dhammaan goobaha ay ka agdhawaayeen ama ka agdhaw hotelka laga soo fogeeyey dadka shacabka oo markii horeba loo diray iyo warbaahintii hay'adaha amniga qaarkood iyagu ku sugan iyadoona meel dhowr tallaabo u jirta hotelka iyo sidoo kale aragada kilomitir 4 warbaahinta la keenay sidoo arkaysaana dhawaqa rasaasta iyo sidoo kale jugta ayaa laga dhex maqlayaa gudaha hotelka iyadoona weli warbaahinta indhaha ay ku haydo hadba xaalka siduu yahay markaasi ka sugan wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in saraakiisha laamaha amnigu ay ku hor yihiin sidii ay ku soo afjari lahaayeen weerarkii muddada dhowrka saacadood dagaalyaasha Shabaab ay ku qaadeen hotelka ayaa magaalada Muqdisho daawadayaal dabcan waad la socon doontaan FTV waa naga daawanaysaan anigoo aftaamina ila socodsiinaya hadba xaaladda sida ay tahay waxyaabaha ka soo kordha dalka ka soconaya gudaha hotelka iyo dagaalka u dhexeeya Shabaab iyo sidoo kale daawadayaal waxaan ku sugnahay meel aan sida ugu fogeyn aragada magaalada Muqdisho markaana kaabiga ku haysa hotelka ayaa ka mid ah hotelada Muqdisho isla markaana weerar ku qaadeen xubnaha ka tirsan dagaalyaasha Shabaab sida darkiisaan waxaa laga maqlayaa sida hotelka jug aad u xoogan kaasoo ay dadku ay si weyn isugu yimaadeen waxaana sidoo kale jirta rasaas laga maqlayo sida taasoo u dhexeysa hay'adaha amniga Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan Shabaab inuu weerar ku soo qaaday hotelka warar aan helino ayaa sheegaya in saraakiisha amnigu ay amar ku bixiyeen in gabi ahaanba hotelka isla markaana sida ay sheegeen saraakiisha qaybo ka mid ah hotelka markaa geli waayey sababta awgeeda kadib markii gudnihii weerarka soo qaaday iyagu markaas xabad ay ka soo qorayeen waxaana hay'adaha amnigu la faray sida xogta lagu soo gaartay in gabahaan hotelka dhulka si marka loo soo afjaro weerarkii muddada dhowrka saacadood qaatay markaas ka socday hotelka ayaa magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale dhammaan goobaha ay ka agdhawaayeen ama ka agdhaw hotelka laga soo fogeeyey dadka shacabka oo markii horeba loo diray iyo warbaahintii hay'adaha amniga qaarkood iyagu ku sugan iyadoona meel dhowr tallaabo u jirta hotelka iyo sidoo kale aragada kilomitir 4 warbaahinta la keenay sidoo arkaysaana dhawaqa rasaasta iyo sidoo kale jugta ayaa laga dhex maqlayaa gudaha hotelka iyadoona weli warbaahinta indhaha ay ku haydo hadba xaalka siduu yahay markaasi ka sugan wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in saraakiisha laamaha amnigu ay ku hor yihiin sidii ay ku soo afjari lahaayeen weerarkii muddada dhowrka saacadood qaatay dagaalyaasha Shabaab ay ku qaadeen hotelka ayaa magaalada Muqdisho daawadayaal dabcan waad la socon doontaan FTV waa naga daawanaysaan anigoo aftaamina ila socodsiinaya hadba xaaladda sida ay tahay waxyaabaha ka soo kordha dalka ka soconaya gudaha hotelka iyo dagaalka u dhexeeya Shabaab iyo sidoo kale
daawadayaal waxaan ku sugnahay meel aan sidaas ugu fogeyn aragada magaalada Muqdisho isla markaana kaabiga ku haysa hotelka Xayaat ka mid ah hotelada magaalada Muqdisho isla markaana weerar ay ku qaadeen xubnaha tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab sidaad arkaysaan waxaa laga maqlayaa gudaha hotelka jug aad u xooggan taasoo ay dadku ay si weyn isugu yihiin waxaana sidoo kale jirta rasaas laga maqlayo taasoo u dhexaysa hay'adaha amniga ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan Al-Shabaab iyagu weerar ku soo qaaday hotelka warar aan helayno ayaa sheegaya in saraakiisha laamaha amnigu ay amar ku bixiyeen in gebi ahaanba hotelka Xayaat isla markaana sida ay sheegeen saraakiisha qaybo ka mid ah hotelka markaa geli waayey sababo jirta awgeeda kadib markii xubnihii weerarka soo qaaday iyagu markaas xabadda ay ka soo qorayeen waxaana hay'adaha amnigu la faray sida xogta lagu soo gaartay in gabi ahaan hotelka dhulka si marka loo soo afjaro weerarkii muddada dhowrka saacadood qaatay markaas ka socday hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale dhammaan goobaha ay ka agdhawaayeen ama ka agdhawaayeen hotelka laga soo fogeeyey dadka shacabka oo markii horeba loo diray iyo warbaahintii hay'adaha amniga qaarkood iyagu ku sugan iyadoona meel dhowr tallaabo u jirta hotelka iyo sidoo kale aagada kilomitir 4 warbaahinta la keenay sidoo arkaysaana dhawaqa rasaasta iyo sidoo kale jugta ayaa laga dhex maqlayaa gudaha hotelka iyadoona ay weli warbaahinta indhaha ay ku haydo hadba xaalka siduu yahay waxyaabihii markaasi ka sugan wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in saraakiisha laamaha amnigu ay ku hoolan yihiin sidii ay ku soo afjari lahaayeen weerarkii muddada dhowrka saacadood qaatay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho daawadayaal dabcan waad la socon doontaan FTV-na waa naga daawanaysaan anigoo aftaxminin waa iga socodsiinaya hadba xaaladda sida ay tahay waxyaabaha ka soo kordha dalka ka soconaya gudaha hotelka iyo dagaalka u dhexeeya Al-Shabaab iyo sidoo kale daawadayaal waxaan ku sugnahay meel aan sidaas ugu fogeyn aragada magaalada Muqdisho isla markaana kaabiga ku haysa hotelka Xayaat ka mid ah hotelada magaalada Muqdisho isla markaana weerar ay ku qaadeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab sidaad arkaysaan waxaa laga maqlayaa gudaha hotelka jug aad u xooggan taasoo ay dadku ay si weyn isugu yihiin waxaana sidoo kale jirta rasaas laga maqlayo taasoo u dhexaysa hay'adaha amniga ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan Al-Shabaab iyagu weerar ku soo qaaday hotelka warar aan helayno ayaa sheegaya in saraakiisha laamaha amnigu ay amar ku bixiyeen in gebi ahaanba hotelka Xayaat isla markaana sida ay sheegeen saraakiisha qaybo ka mid ah hotelka markaa geli waayey sababo jirta awgeeda kadib markii xubnihii weerarka soo qaaday iyagu markaas xabadda ay ka soo qorayeen waxaana hay'adaha amnigu la faray sida xogta lagu soo gaartay in gabi ahaan hotelka dhulka si marka loo soo afjaro weerarkii muddada dhowrka saacadood qaatay markaas ka socday hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale dhammaan goobaha ay ka agdhawaayeen ama ka agdhawaayeen hotelka laga soo fogeeyey dadka shacabka oo markii horeba loo diray iyo warbaahintii hay'adaha amniga qaarkood iyagu ku sugan iyadoona meel dhowr tallaabo u jirta